السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا دمانتين ومانتي دودا برنامج جرا آدم مهم هديات كنا شاهي وضمada قارة يوروب iyo waliba wadanka Australia. barnaamijkeedu wada waxa weeye waa qorshaad ku iman karta wadanka Canada oo idin sahrayna wadanka timaatan kana shaqaysataan idinkoon wax talab shaqo ka helin habeeraati wax company oo ku base garaysan Canada. barnaamijkan waxa loo yaqaanaa International Experience Canada wuxuu ka caawinayaa inaad ku soo gashid qaab shaqaalanimo wadanka kagana shaqaysatid baasaboorkaaga European-ka ama wadanka Australia. dadii far badan oo kamid ah muuqaalkan taawani waxa soo weydiin doontaan hadii baan baasaboor European haysto ama haysto Australian waxaan uga baahanay Canada inaan visa ka soo apply garaysto waad u baahan tahay sababta wadanka Canada hadii aad ku soo gelisid visitor visa ma joogi kartid ka badan 9 casho saddex bilood ka bacdi visa-gu uu dhacaya wadankana haddaad ka bixi weydo waa fine waa ganaax waan lagu xiriyaa dadii far badan oo dowladda dacalada ka maado baasaboorada haysto waxay jirtay in wadankan maadaan qaxoontinimo isaga dhiibaan laakiin si dowladda Canada hadda arrintaas waa ay fahantay soo qabanaysaa way ku tarxiilaysaa markay ku tarxiishana wadanka way ka mamnuucaysaa waa haddii aad ku leedahay baasaboor ama aad wadamada Yurub marnaba soo martay qaab qaxoontinimo wax yaraatay wadanka Canada kuma soo gali kartid soo haddaba haddii aad jeceshahay wadanka timaadid ku noolaatid ka shaqaysatid eegtid wadankan noloshiisu sida ay tahay qaab fudud baa jirta oo aad visa ku soo apply garaysan kartid waqti xaadirkan idin hadlaayana boolisku ay furihiin waana soo xareysan kartaa haddaba qaabkaas waa maxay qaabka waxa loo yaqaanaa International Experience of Canada waa wadamo gaar ah waan ku xumahay inaan Canada u offer garayna qaabkan wadamo fara badan oo ay ka mid yihiin wadamada East Africa iyo waliba Africa oo aan ogahay in dadyo fara badan skill fara badan leh oo ka faa'iideysan lahaa programkan ay ku nool yihiin description ka waxaad kaga tagi doonaa linkaas hadii aad furtaan waxaad arki doontaan wadamada eligible ka oo ah inay program ku soo xareystaan visa lagu sinay waxa loo yaqaanaa working holiday visa waa visa u dhaxeeya sanad ilaa 2 sano wuxuuna ka caawinayaa wadanka inaad ka shaqaysato qaabka loo soo kala xulayo dadka ay qaadanayso Canada wadan kastaba police ayaa loo dhigay police marka lagu dhigo marka dadiyo tiro gaar ah laga soo qaadanaya tirada dadka la soo qaadanayo way kala duwan tahay wadanka wadan salahan hadii aan dhaho wadanka Jarmalka oo kale hadii 600 qof laga soo qaadanayo 600 qof waxa eegayaan 600 qof ee skill-ka Canada aad kugu baahan tahay haysta 600 ay invitation loo dirayaa ka bacdina lagu soo casuumiyo hadaba si aad u bixi chance-kaaga waxa laga baahay inaad rasmiga ka shaqaysid oo CV ku noqotid eegtid website-ka canada.ca insha Allah link fiidki doona sidoo kale waxaan link kaga tagayaa Canada Job Bank website-ka shaqooyinka Canada ka banaan laga eego da website-ka eegto waxaad arkaysaa shaqooyinka ugu badan ee banaan hadii aad leedahay skillada kamid ah ku taxan website-ka Canada Job Bank ku soo qor rasmiga si fiican u tailor galay markaad ku tailor galaysid rasmiga soo apply garay chance-kaagu wuxuu noqonayaa markaa in lagu soo qaato maadaama aad skill ka leedahay sidoo kale waqti xaadirkan aan hadda idin hadlayo application way free waad soo xareysan kartaa it's open تكريت كده اللي هو application كده سبا processing time كيسو 6 weeks only في skill لاي حتى أن أوجه هاي يقف كلا charge كريني و $156 only بقول يكون تاني $6 ركبتن كرتها لكن website كندا بتسي أنت وقرية وأنت وحنقرأ ربعنا أنت كترو وحلا جنب هاي إن police clearance يعد كنت مرك عاد application كسوة حرينيس ساعات سيف عنو قد يركروديد واحد هو بيسامرك وجوه رئيسه inaad haysatid police clearance wadanka aad joogtid police clearance ka soo qaad soo upload garay qaabka ugu fudud oo samaysan kartaa waxa weeye Canada.ca hadda aad account ka samayso waa free lacag la'aan then start your application kaaga marka application kaaga start garaysid waxa ku tusayaan waxyaabaha aad u baahan tahay inaad soo upload garayso oo dhan oo kamid yahay baasaboorkaaga warqadda shaqo ee lagu siinayo waxa noqon doontaa warqad loo yaqaan open work permit open work permit waxay ka duwan tahay warqadaha shaqo ee kale waa warqad ku sahlaysa inaad ka shaqaysid 98% shaqooyinka wadankan laga qabsado waa warqad ku sahlaysa inaad ka shaqaysid gobol kasta iyo magaalo kasta oo Canada kamid ah tusaalahaan aan dhaho waayada hore marka uu ku soo sponsor gareeyo company waan company-ga u shaqaysaa muddo cayiman ma ka tagi kartid magaalo kale kamid ma qaban kartid ma safri kartid si qaabkan wuxuu ku sahlayaa inaad ahaato shaqaale madax furan oo meel alaala meeshii doon oo tagi kara in budgetka lagaga baahan yahay amaba lacagta lagaga baahan inaad haysatid waa kaliya $2,500 oo ku survive garoodi 3 bilood ugu horeeyay noloshaada
umalay maayo $2,500 inaad 3 bilood ku sarfaaf garanayso laakiinse waxaan ku hubaa 3 bilood ka yar inaad shaqo ka helaysid haddii aad waddanka timaado I don't know inaad wararka daawateen bishii April ee sanadka Statistics Canada waxay sheegtay in ka badan 1 milyan oo shaqo ay waddanka bannaan tahay 1 milyan ee shaqo ilaa iyo hadda Canada lama buuxin dadyo buuxi ayaa la raadinaya so waxay ku noqon kartaa chance aad ugu soo gudubtay waddanka kuna timaado maxaa dhici kara haddaba haddii aad warqadda shaqeeyso warqadda shaqo haddii hesho oo waddanka timaadid waxaa dhici karta in haddii skillkaagu yahay wax loo yaqaano trade skill ama skill waddanka aad iyo aad looga baahan in waxaa jira waxay gobollada furaan oo loo yaqaano PMP barnaamijka PMP in markaa aad ka qayb gashid oo aad heshid degenaansho loo yaqaano PR oo permanent residency-ga ka haddii aad heshidna waxaa waddanka noqonaysaa qof deegaana oo degan oo si rasmi oo degan soo haddaba haddii aad doonaysid macluumaadkaas oo faahfaahsan waxaad ka helaysaa website-ka canada.ca linkiis inta description haddii aad og tahay qof waddamada aan soo sheegay ku nool oo is leedahay muuqaalkan ugu faa'iideynaya aan kaa codsanayaa inaad u sheergaraysid oo aad la wadaagtid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.